السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليغا قاليغا مير البادوني دافهيدا كجوجتان وولاشين زهر عبد الكريم كسو دوادا جنال كيفتينكا قويسكا جنال كيفتينكا قويسكا oo aad ugu barateen usbuuc walba iyo muuqaal cusub ku soo dhawaada mawduuceena maanta. intuusan dhimanin qofka muslimka ah wuxuu arkaa waxyaabo aan suurgal ahaan karin inuu arko qofka caadiga ah. tusaale wuxuu arkaa malaa'igta oo ugu bishaaraynaysa khayr iyo inuu dhimanayo lana kulmi doono alla kor ahaaye iyo khaatimo wanaagsan. wuxuu alla subxaanahu wa ta'aala ku yiri suurada qaaf fakashafna anka ghitaa'aka fabasaruka al-yawma hadiid. wuu yimid cilmigii cadeynayay in qofkii indhihiisa la dhigo jidaar oo intuu arki karaa tahay in xadidan. haddaba shaqada jidaarkani waxay tahay inuu inoo diido inaan aragno jinka iyo malaa'igta. marka sakaraadku qabto waxaa la feedaa xijaabkan waxaanu arkaa qofka malaa'igta. intaa kadib waxaa kaaga dhacaa maskaxda tashwiish. wuxuu arkayay heer aan ka warami karin wuxuu arkaayo. kadib qalbiga ayaa dhaca waxaana nafta ama ruuxda laga saaraa lagana bilaabaa lugaha si aan qofku ugu fiirdhan xanuunka ay leedahay marka la saarayo. wuxuu yiri alla kor ahaaye culimadu waxay ku qiyaaseen xanuunka ay leedahay marka ay ruuxda baxayso 3,000 oo seefood oo hal mar lagu dhuftay oo kale. malkulmoodka wuxuu maalintii ku eegaa 360 eegmo. wuxuu sugayaa amar ah inuu nafta ka qaado. ha ka yeelin inuu ku eego adoo macsi ku sugan kadibna oo ruuxda ka qabto. bal isweydii maxaad rabbigaaga la hortagi doontaa xilligaas? qabrigu 5 jeer ayuu ku dhawaaqaa oo ku oran anigu gurigii kaliinimada ayaan ahay quraanka ka dhigo wehel. anigu gurigii mugdiga ayaan ahay ku nuuri salaatul leylka. anigu gurigii ciida ayaan ahay amalka wanaagsan firaash ka dhigo. anigu gurigii masaska ayaan ahay sii qaado turiyaaq oo ah bismillaah. anigu gurigii munkarka iyo nakiirka ayaan ahay badiya oraahda shahaadateynka. anigu gurigii munkarka iyo nakiirka ayaan ahay badiya oraahda shahaadateynka.